waxaa ka sheekay doonaa taariikhda calanka Soomaaliya oo aan ka soo xigtay BBC-da qaybta afka Soomaaliga. Waxaa wareysi aan la yeelanay Abwaan Cali Jaamac Cali Dhoof, waxaa adeer u ahaa Maxamed Cawaale Liibaan oo soo korsaday ninkii hindisay calanka Soomaaliya. calanka Soomaaliya 12 Oktoobar sanadii 1952 ayaa laga hindisay calanka labadii sano ee xigta dood ku saabsan baa ka jirtay qaramada midoobay, balse 1954 markii Cabdullaahi Ciise uu tagay xarunta qaramada midoobay oggolaatay. mar wareysi laga qaaday Maxamed Cawaale Liibaan markii ugu horeysay ee lagu fikiray calanka Soomaaliya leedahay ayaa ahaa sanadii 1940 markii markaas oo tallaabo loo qaaday sidii Soomaaliya ay ku yeelan lahayd calan Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed. Maxamed Cawaale Liibaan oo markii ugu dambeysay la wareystay ayay ahayd 1983 qaybta BBC-da afka Soomaaliga. Maxamed Cawaale Liibaan oo wareysi mar laga qaaday ayaa sheegay waxa uu sheegay in Talyaaniga damcay in uu ka soo horjeesto calanka isagoo ku andacoonaya in uu u egyahay calamo kale oo markaas horay u jiray. sanad kasta waxaanu dabaaldegnaa xorriyadda calanka Soomaaliya 12 Oktoobar muddo laga joogo 60 sano. calanka Soomaaliya waxay noo ahayd xorriyadda oo maalintii ugu horeysay ee aan xorriyad ka qaadano reer galbeedka ama reer Yurub muddo laga joogo 30 sano oo isxigta. waliga hadhici على يوم